حاجة شوكتها مان ما أنت واحد شوكا أروس بادية هذا إيش كوجرة عرب إيه أكاسا ما شاء الله عرب لما تابسي وحود يقول صور معها يعني صور معها يا only me يقول معها وأكو هذا كلام بابلي قوي أكاسا أنا أسوأ بابلي قف كسوة عبي كرا حتى فيسبوك كسوة ضربان كرا إيه بلنوش معنا رجني بسم الله سمير بحاجة فرية وريا إيش المارك إيش الأقبال بس يا عبي ما شاء الله بسم الله بيارك iyo dadka meelaha jooga oo wareerayga waxa leenahay waxaas nimcadaas dhulka taala hadhow hilib badan baa arki doonaa ay oo tosbi cabisa sawir ma waa artaan ani way cabti waxaan maqli jiray mahmaahdii ahayd hadal lama wadaaga caana la wadaaga ay sawiray ana ismaa cabdi kabala ma rabe سفيان عبابة قردوسي جاهز ولا هو عارفين سرمارك وكوسيح وحقنا يا وسوق لا وكان هذا سكي عانا جعل ومعنا عبان لا لا وكان سرمارك دياروبك كجرى يا هذا ترتم قفك هروب عبا ما نو قالين ترتم تهاي وكا ويلكاس انا عبي وكا تاخذ مع يا قرحان خبقي سير كعلي مقابع أنا لما عليو معك يا قناتي والله كسر أنت سمير وحمد أنا على الوعد صاحب أنت هذه بهرتي أنت أنا وحوي ما تريسي هكذا كنت تقول الدنيا أنا سوعته هذا واحد شغلنا mid ka mid ah deegaamada hawdka ah ee gobolka Nugaal dabcan waxaan aragtaan waxa ku jira caano saaka meel lagu shubay saaka roorta lagu shubay caano riyaad iyagoo dhanaan baa halkan lagu shubay kadibna maanta duhurkii baa saaka roorta la lulay maanta duhurkii la bixiyay bal aan idin kala dhabaxo maamada magaca ku bilaabay bal dadka aan aqoon u sharax bal waxa halkan ku jira waxa yihiin sida loo sameeyo halkan wax ku jira caano lululay ayaa laga listaa iyo doobi shay lagu shubay baa doorta kornaan baa la lulaa marka haddana lagu shubo waa la lulaa waa la bixiyaa marka subag baa lagala baxaa marka sidee baa subagaas loo sameeyaa caano markaynu ognahay hore waa caadi dhanaan bay noqdaan waa la cabaa subagna kuma jiro subag intee ka yimaada waa lulaa waxaan kaas subag ka sameysmaa subagaas marka sidee loo galaa maxay faa'iido leeyahay waa shay lanaadii waa la sheegaa macaaniyada ka bixina caaniyadu marka maxay tahay waa caanadii caanihii ka soo weeyay subagii ka soo marka intaysa subaga noqon marka la soo bixiyo oo caanihii laga saaro maxaa loo yaqaanaa racad markii la shiilo waxa uu kala baxayaa subag iyo caanihi marka caaniyada la iska daadiyaa waxa la helaa subaga marka wuxuu faa'iido leeyahay ma la cabaa ma la gataa suuqa hadii laga qiimo malay kulan wanaagsan daawadayaal hadda waxaan ku sugannahay deegaanka lagu magacaabo Qoririd oo hoostaga deegaanka Tuulo Ooman ee gobolka Nugaal dabcan waa deegaan hawda halkan ay u jeedaan caawa hadii Allah awood loo ogolaado waxa ka dhici doona arooskaasi oo ay ku aqal galayaan heer cusub oo dunida ku soo biiray oo reer guuraaya dhulku waa barwaaqo dabcan waxaana halkan ku badan dadka xoolo dhaqatada ah oo aad ugu badan arooskan waxa ka qayb gali doona dad kala duwan oo miyi iyo magaalo intaba isaga yimi waxa hadda igu la sugan qaar ka mid ah dadkii qaban qaabinaya arooska halkan caawa ka dhici doona magacaaga ku bilaabaya bal halkan caawa maxaa ka dhici doona hadii Allah wada ogolaado insha Allah magacayga waxa la yiraahdaa Faarax Jaamac Ali kuna magac dheer Faarax Kashkaashte aroos baa halka ka dhacaya oo tuulada deegaankan maxalliga Qoririd waxayna hoos tagtaa tuulada la yiraahdo Ooman arooskaas meeshan ka dhacaya reer miyi iyo reer magaal kulli all waa isku soo nimi hadii baqadka leeyahay halkan waad aragtaan deegaankiisu yahay quruxdiisa iyo nidaamkiisa iyo barwaaqada taala aqalkiina waa u jeedaan la dhisay oo maartay si ma sha Allah u yahay marka saaseen caawa hadii lahayd ma arooskaas marka dhulkan hadda waa dhul barwaaqa bal ka waran nolosha dadka reer guraaga halkan ku nool iyo xiliyadan oo kale sababaha badan ku soo aadiyay in aroosyada noocan oo kale la dhigo waxa ku soo aadiyay meesha horta sideeda dhulkan waa dhul barwaaqa ilaahay mahadiis waad aragtaan hadda dogaanta ku taal iyo barwaaqada ku taala aroosyada hadda waxa ku soo aadiyay barwaaqada magaranaysa korodhay
markii barwaaqa dhacdaba waa koranaan magaranaysaa aqalada la dhiso oo magaranaysaa reermiyu weliba semberi waqtiga magaranaysaa naqa ah bay aad u aroostaan oo maartay u kororsadaan waana arkaan dhulkii waa dhul barwaaqa waa u jeedaan macnaha waxa weeye marka saasaa kaliftay macnaha aroosyadaas in maartay hadaayo kala dhiso aqal weyn baa halkan ka dhisan dabcan awr iyo ari iyo kulli waa la qalay dad fara badan baa ku sugan caawa maxaa la filaya in la soo bandhigo caawa waxaa la soo filaya sugaan dhaqameed in la soo bandhigo sida buraanbaradii gabayadii magaranaysaa majaajalooyinkii magaranaysaa waxyaalahaasa la rabaa caawa haddii lahayd inaan soo bandhigno markii magaranaysaa la casheeyo oo cashada ka bacdi baa la rabaa in la soo bandhigo haddii lahayd ee beedmo waana aragtaan haddii geeli waa qalan yahay waa aragtaan awr baa qalan dadkiina waa fara badan yahay waa aragtaan alxamdulilah rabbil caalamiin hadda ilaahay baa iska leh aad waa tahay qayb ka mid ah dhalinyarada deegaanka oo iyaguna hadda arooska yimi baa igula sugan magacaaga ku bilaabaya walaal ka war soo aragtay in arooskan ka soo qayb gashid walaal waa iska macnahay barwaaqa la qabaa waxa la yiraahdaa Cabdi Maxamuud Diiriye waa ku faraxsan arooskan xafladaan la dhigayo meeshan baadiyaha hadda okay xaalado Cabdi caawa maxaa isku haysaa maxaa soo bandhig إن شاء الله وحي عن كرتو يصح دانتوين مسجلوين قويو برامر كروح حديث وكدر ساعتها ودمركي waa ka oogaysaa walada dumarkii marka maxaa dhacay doorkooda way gabeen maxay tahay marka sanadan waxa loo arkaa dhalinyaro badan oo rag oo barnaamijkii aad ugu horeeyay ma dumarkii waa shaqadooda gabeen marka labadu waa caadi dumarku meesha ka gabi waa gabayaan rag waa barnaamijya dumarku barnaamijku iyo gabayga labadu waa isku haystaan waa normal marka bal mid iyo laba eray hadii aan nasiix xusuusiyo waxyaabaha hadda aad jeclaanayd caawin halkan ku soo bandhigtid adoo intooda badan dib u dhiganaya insha Allah wasku baan hadda ma xasuusni adoo maastay magacaaga Ahmed Maxamed waata Ahmed soo dhow ka waran arooskan hadda maanta aad ka qayb galaysid deegaankan aroosii hore indhoweed ma ka dhacay waa ka dhacay waka marka aad dadka deegaanka ka mid dadka deegaanka aan ka mid ahay marka aroosada noocaasna waa ka dhacaan xilligii barwaaqa ayo ma garanaysaa de chance la leeyahay oo barwaaqadaas oo kala dhacdo waa aroosada noocaas la dhisaa marka xilliyada kale dadku waxa iska mashquulsan yihiin xoolihii iyo inay iyaga ay meel la raadiyaan laakiin xilligan oo kala barwaaqaha joogu iska degan yahay aroosada xilliga joogu iska degan yahay barwaaqada xilliyadaas aad aroosada iyo farxadda iyo nimcada aragteen iyo waagi hore waxa la dhihi jiray gabar markii dabcan dhulka reer guuraaga oo kale la doonayo geel fara badan baa laga bixin jiray yarad la yiraahdo hadda arintii wali ma jidhaa mise waxa uu waa fududaat may wallahi arintii yaradku hadba macnaha waa awoodii reerku ay leeyihiin iyo wixii ma garanaysaa hantida ay leeyihiin baa lagu qiimeeyaa waa heshiis bulsho wax khasaba marka iyo wax khasaba maaha in kasta wax hagar la'aan wixii uu hayo buu dhiibanayaa marka reerka saasa loogu dhisaa marka caawa maxaa rajeynaysaa in halka ku soo bandhigtid inta aad ku sugan tahay waxaan rajeynayaa gabayo iyo buraanburo iyo wixii dadka bulshada gacalka aan ugu soo talagalnay maadaama ugu talagalnay wax ma curisaa marka mise waxyaabo hore loo tiriyo abwaana ka horeeyay ma wallahi halka wali ma gaarin booska wixii abwaano baan u higsanayaa laakiin taas kuma haleyn karo ku hawlanahay walba soo dhow magacaaga ku bilaabaya aqalkan iyo waxyaabaha ku kooban yahay adoo dadka baraya iyo waxyaabaha la yiraahdo bal kan waa kabad kan waa alool marka kabadan maxay ka samaysan tahay waxa laga sameeyay dun baa laga sameeyay wata sidaan warshad baa u samaysay mise gacan baa gabar baa samaysay kana gabar baa oo mariyo kala duwan oo samaysay mariyo kala duwan weeye gabar baa samaysay maradan marka maxaa ka hooseeya oo kala ahaan way ka koobantay laakiin maxaa ka hooseeya saan u adkay xarig samaysan baa ka hooseeya oo marada lagu laaray waayahay kan inkastoo uusan muuqaal ahaan ka duwanayn laakiin uu ka adag yahay duur baa ka hooseeya qoryo meeshii kan xarig ku hooseeyay kan waxa ka hooseeya duur baa ka hooseeya isaga adkeynaya marka labadooda maxaa loo kala isticmaalaa kana waxa lagu xirtaa aqalka labadaba aqalka loo isticmaalaa aqalada lagu xirtaa aqal Soomaali kana kan waa raar dusha laga saara aqalka dusha laga saara taan isaga caws buu ka kooban yahay isaga caws iyo xarig buu ka kooban yahay kan marka muxuu yahay isagana ku xiran waa xarig weeye xariga samayska weeye marka intaan marka bal hadii dadka waxa la kala dhaho intaan waa baarka inta tanada waa samayska waata hadda gudaha soo galay aqalku dabcan laba qaybood ka keenay bal inteena aqalkan gudihiisa eegin halkan labadan qaybood maxaa la kala yiraahdaa maam qaybna waa xagga waa aragnaa waxba u dhaxeeya
alaab baa u dhaxaysa qaybna waa halkaan qaybta aan taaganahay oo xaggaas qaybta kale albaabku leh waxa weeye qol iyo barsad camal kana waa qolkii de maxaan ku yiraahdaa chiefka kana waa qolkii kale alaabtii ay dhigay qolkii alaabta iyo martida iyo gogasha iyo waxaas la dhiganay marka intaan maxaa la yiraahdaa magaceeda hadii dadka u shid maxaa la intaan waxa la yiraahdaa adigu waa daah waa la kala daaha waa kala xir baa la yiraahdaa lagu kala xiray waa la xir waa la xir waa yahay marka halkaan dabcan kuwan awal baynu soo aragnay laakiin iyo dhigaha waa yahay kuwa kan dhig baa la yiraahdaa waa dhigaha loolka oo saasa loogu sharaxaa iyaga lool baa la dhahaa lool baa la dhahaa saasa loogu sharaxaa iyaga waa sharaxaad aqalka si kale uma hayaan kuwan de waa udubkii uu hayaa waa tiirku ku taagnaa kuwana de waa kuwaas kuwa suuqa la yiraahdaa waa dhigahaas waa dhigaha waaweyn oo xoog leh aqalka xoojinaya marka xargahan iyagu xargahan isku xirxir weey xargaa la yiraahdaa way isku hayaan aqalka dhan bay isku hayaan saa weey waa tahay adoo ma santa marka darin way tan darin baa leeyahay darinteeda maxaa laga sameeyay marka mayra laga sameeyay mayrada laga sameeyay dhulkeena ka baxda dhulkeena ka baxda marka gabayadana dumarka sameeyo iyadana habraha hooyooyinka sameeya marka dhaqankii hore hadii aan fiirino gabdhuhu inta yaryariin waxa lagu tababari jiray inay iyagu waxaan gacanta ay ku sameyn karaan si hadhow markii gabadhu ay dabcan reer u yeelato aysan cidna marti uga noqon kulli gabdhaha sameeyo tacabkooda wax kuwaas fartaas ku sameeyaan tan gabdhaha falkii marka hadda kuwan oo kale hadda la soo gaday mise familka qoyska samaystay familka qoyska sameeyay wax lacag laga ma soo bixin reerka samaystay marka gabdhaha inta yaryariin baa ku soo tababarnaan si hadhow idinka dhaxlaan inay iyagu ay samaysan karaan nuunayaal baa loogu tababaraa waa tahay marka dhaqankii hore ee Soomaalida iyo hadda waqtigan markaynu fiirino maxaa isbedel oo yimi oran ka dhamaa maadaama adigu aad muddo dhaqamo kala duwan u soo jeeday oo dadkii hadda ay magaaloobayaan deer maxaa weeye maxaan ku yiraahdaa de qof walba waa tacabkii gabdhaha yaryar oo baadiyaha ku koray tacabkii hidii dhaqankii bay hayaan wali waa hayaan waa sameeyaan de waxa sanacdoodi wataa waa raarka waa dirinta waa dhigta waa udubka